ما أنفعه توتلي وأنا أقول كودرا وأنا كان نسافر نيا أنا من سيد ساحب الناس عني توتلي ما أنفعه هذا تقول لي عمرك العشاء صوت كتو أنا هذا صوت لما يصوت هذا دقل كذا يسوق يسوي لكم نينو أنا هذه وثقة بكرنا أنا بتشاردنا أنا مش قارة أنا عرضت قاعد كايس أو عرضت وسيلي بتي ما أنا تقول لك قبت عارن هاي سيء كل على إن لا يتم ساعات أباك يغفر سأكون عكرتها وحاسي أنا وحنا هاي مسؤولك الجرجان هدات هاينا مثلا مسؤوليتكم تهي مركب ويا هاي شغلنا واكل قيب سنة شغالة كلا قبيم محيطها أنا وحنا حل صارنا هاي إنان انتظر دونه واحد حيران الله هيدين لبدا هبيني ما مركب بريس هذا نساء وراح أنا يقول شكين سفيري واحد حيران الله هيدين واحد عون الله هيدين هذا مالك الرادي واحد بيل الله هيدين واحد صلنا كوكو مقام بنا عدونا واحد هو يلا الله صوص عريسة وبتكون أحسن الله ربه دل يدين يضرب إنه واحترام متى هو يلا هذا السيدان مقاطع يقول قيلنا سعني قيلنا محيا كاني إنا نقبتون أولولو محيا كاني صادق جماعة كيني أظن ما يكن استمسك ما تكاني شكاية كاني أصير waxay igu jeedisay saddex ciyaala iyo guri weyn oo qasriya baa igu mashquulsan astrinaagta noo ku xasuusan kartaba totally inta qasrigaan iyo carruurtan ku jirto bax waxa doonto samee meesha doonto ka deg anigana waxa dileeyahay shaqan ku jira ana doqon xuna waxaan ay micdu joog wax ma ku sheeganino adiga miyaa ma sayrsan tahay bas hawl kala wada anu hadaan ku masayro iyo hadii kalaba labadeena dadka iska dooranay labadeena meeshan soo wada degnay labadeena inoo naga dhaxaysa hadaan ku masayro soo masayirku ma yaaba anu hadaan masayri hadii kalaba ikhtiyaar baan leeyahay meeshana anu biladimir baanay waxaan masayri waay waxaad ku maqantay maxaan ka warhayaa ma CC camera kugu xiran تعيش هذا يجني ودقنها الحمد لله رب العالمين ودقنها لكني على مسكحتي ذيك لا ما يبغى نسمع هذا هو شو ديك رقعتي سامع ما يساني كيف سامع هذا هانشري ودخلنا هانشري معيد انت على اكتر سامع بريقدي وهلكد kaga baxdo oo ugu soo gashid baan ahaan jiray laakiin hadda waa isdareemay waxaad ku maqan tahay taakayna kula socdaa rabaa minid aniga saddex ciyaal iyo guri xuna uraya igu bahalayn maysid igu jeedin maysid ma fahantay aniga saddexda carruur waa ka dheeraanayna meel aan daweyn aan ku noolaanayna waysan ahayn waa naqabay saakal gacaylka aabanimo oo nin inaagtiisu muujin jireen aad ii muujinaysaa wax ka dhaxeeya ma jiraan hay ifur imika wax saa iga eegmaysa warqadayda hadda halka ay dhigmaba kula noolaan karo saada barnaamij totally isii warqadayda daguma ku reer ma doonayo reerka adaa dumisay reerka adaa dumiyay waraa ku sheega daacad iyo waxaas waaba kaaga dartay wax daacad la dhaamaba jiraan basho adduunkan daacad waa waxa ugu daranba warqadaydi barta ay dhig waa ku kala taginaa saddexdeeda ciyaal iyo aniga meeshan ku noolaanayna adiguna naaga habeen oo dhan ku maqatay ku maqnow iyo magaalada ku jirto habeen oo dhan shaniku haduu lacag yeesho shaniku haduu lacag yeesho iskala garan bawaaya wuxuu soo naag xoolaha meeshan fadhido doqona waxba kala garanaynin oo mar walba ganacsi baan ku maqanay war wax ku sheegaanino war wax ku sheegay gaban hadda gaban san nin xishoonaya tahay waa meeshan karaamad ku joogi lahayd oo xushmada isku soo guursanay baad ku joogi lahayd warqadayda isii هذا لا المو ينمغ عرضت أنا على صاحب يقول درهابين ميس عرضتيدا أنا على عرضتيدا وأنا كانت تجاي عدان دون واختيارات أنا لا لا ما تيجي كرت ولا تجاي عرضت بعدها ورسي ورقتيدا أنا دعنا سيس كنا ما هي كتير هو بيا ده يطبع كذا شيء هذا أنا بحاول يرني just now والله يقول فنجر أنت هذا الناس سوق أرضي أيانا أنت راجين كسكو قرت يكو عيش والله لكن أيضا أسكلا إن دعم لو إن ده تساعد مساعد عطيس فرينك يدلبنا ولقي بالناق مفرين بيلا أيضا مسيا بربرت الله يباي الله أنا كده يا أبو إسكورة أبو الله يضي معصمة يا يضي ما أنت هتيجي شغل هاي مساسوني نيجي لا نيجي مثلا يا أبو حد عاب اللوزة يا أبو نيجي الله يضي يلا معصمة يضي ما أنت هتيجي شغل هاي مساسا نيجي مثلا أبو كنا معلوم كل سر مسكوري إن أنت هتاخد واحد قبضة صافيري
هذا عيال islihi maysid هذا عيال aabba ninkii wuxuu igu sameeyey habeen walba wuxuu imanayaa labada habeenimo soo hoyanayaa labada habeenimo guriga saa igu soo gargaraacayaa mana qaylo ninkii balwad male oo ragga balwadda ku maqan maaha muxuu ku maqayay saacadda aabbo ma shaqa lagu maqayay saacadda labada habeenimo kaduu imaanayo aabbe rag wada habeen bay imaan jireen siduu habeen u yimaada labada habeenimo maxaa la qabanayaa aabbo wax magaalada laga qabanayo bal ii sheeg ninka saacadda isku seegtay xilligu soo weynayo kaliya soo kala jira aabba ninku markuu ninka far baa meel ugu laaban amana aabba ninka naag buu qodba sir ku qabaa hadduu cadaysanayo oo uu leeyahay hadda naag baan kula qabaaye maxaa dhihi jiray gurigaaga habeenkaaga ka adka oo joog hadduu leeyahay waa raganimo waa u dul qaadan laha laakiin ninaan waxba kuu sheegaynin oo habeen walba labada habeenimo imaanaya see dhahaa anuma ninkaasaan naagu noqon karaa aan guriga dhex fadhin karaa afar derbi baan saa u eegaya iyo 3 ciyaala ma waalanaya waab xagaad eegi lahayd guriga aftada eegi oo guriga mustaqbal bii noqonaya aabbo ninkan geeda ilaahay gabar hooyadeed baa dhista gabar hooyadeed baa saa waxa la gurmata oo la hinaasta oo la waalata anu markaan ku imaadana waxaad ilaaday ninka la joog oo balanbalkii silca guri dhex taagnow warqadaydi baan doonayaa wax kale oo imaro haddaad ninkaa ku sibood garaysan tahay inuu 8 habeenimo inuu imaado haddaad ku raalli kaga tahay haddaad raalli ka tahay gabadhaadu inay 4 derbi oo qalaalan sidaa u dhex taagnaato waxaad ku qabateen yaad ii sheegi karto ma ninkaasoo soo daa keliya ya daahitaan sidee ah dee wax waxaa tiri adu horta ninkan aanu shalay kuula imaado igu daro ii guur ma ku dhahay waa nin kaa fadhiisan waaya igu tiri moogta igu daree say igama fadhiisan waaye maantana haddaba furinkayga ka fadhiisan waa oo hadda gal sheekadaas warqadayga qaadi warqadayda baan rabaa ninka hadda waxaan kaga imi guriga toliya dad baan ka dhashay baan ku uri aniga meehi baan ku naaga cilla ka soo kaxaysatay aabahay baan u tagayaa iga kaa furaya baan ku uri ma koogi ma guriga ka timi asagi baa joogay dad kale ma koogayn ma ehelkiis maxay igu sii ehelkiis may qabaan qabee ya waraaqa ma gabadh moogtay nin man qabay ehel baa qabee ehelku shaqo laguma leh aniga ninkayga dhexdeeda ma soo geli karaa wixii iyaga gaadhay calaleheed hala gaari laakiin hadda aniga isaga isku dhacnay ma fahantay inaan iska furaanan doonaya warqadayda iga qaado aabba macaalim haddii aanad rabin oo aanad rabin inaad dhagxumo kusoo gaadho la yidhaha gabadhaadi iyo nin baa halkaas jiidanaya ninkaa warqadayda iga qaad هذا العظم تبسمع الحمد لله رب العالمين توان الله عنه إلهي بعد شيء سيء تركي إلهي بقى يصرفي لكن سلع كمان ولا كريو ورا لا يري سلع كنول صدق برسة تعدانتا ما هذا سلع كنول بقى ما هو هري كل هري وياه سلع كنول بقى صدق برسة تعدانتا مثل الياب مثل الياب محيط مدك عليه حالي ناك صوت الديني سوبق من وركس الله ما قاضي لكن كذا وخافر يعني ورا بانو ورقديدي بان دونيا ninkaasi 8 habeen walba ximanaya labada habeen uu guriga soo galaya meel ku maqayay kama warqabo naag ninkeeda aan ka warqabin doqoninay u tahay anu fadhi guriga raaxuna lay dhigayna waxaas abiis rumalihi waraada ka qaado warqadayda iga qaad igu halle iyo waraysanaya isagana waxba waraysan hadda doonto wax ku taa gabadheeda ii fur laan dheerad ka dhigaa abga cali annaka hanoo bariyeen waaye ninka hanoo bari waaye استغفر الله السلام عليكم السلام هذا الرئيس نمو سودو فعلا وكسوبي واديتي الحمد لله الى وكسو نبدغلي bal warka isii gabadha way timido way warantay adiguna de bal naadi waranto baan jeclaan lahaa soo dhawaab oo mahadsan soo jiraan dhibaataha jira waxay reerkii asagoo nabada baa iigu dambeysay shalay xalayna xilli dambaa imid oo shaqan ku soo gaara gabadhi saaka wejiga ka duwan baan goor barqadiya ugu imid anoo fadhiga iska fadhiya bay soo gasho gabadhi karkaraysa masaana waa iska shuqul islaamiyadoo aduu in iyadu ma dad baa naaga iyo wax kale la sheekaysatay ma garanay aduu dabeecadaana ku aqoon jiray baad ku aragtaa bay la soo baxda ifur halkaa dhig waxayga yeelo oo habeen barkii baa socotaa anna shaqan u socdaa mooye iyo dee reerkayga siduu igu qurux badnaan lahaa mooye wax kale anigu kumana maqnaan jirin xilliyada ba-ay oo ay leedahay wuu socdaana nin shaqo ku maqan baa tahay nin shaqo reerka ugu noqon baya reer kale oo soo kordhayna ma jiraan dee waa beriya sacbe laguma dade uu soo shaacbixi lahaa
adigu iska shaqo dumar bay tiri oo adigu inay dhinacaaga soo aadaysa haddaan aabbahay u tegin haddaan xagga u tegin bay soo tiri anna waxaan kugu imid reerkaygii inaan rabo oo aad ayadana u caqli celisid baad igu timi waalidnimaa kugu imid daacad soo dhowow de xidhiir fara badan maynaan samaynoo moogtay dee nin wanaagsan inaad tahay oo afgaaban oo reerkiisana ku filan hawlihiisana si moogtay guud u maamusho oo wanaagsan oo waa xeegube iyo xilowalwaal raggu labadaas u qaybsanaa baa la yidhi inaad nin xilowalwaal la tahayoo reerkiisa ku filan de warkaaga war iskuma kayseegana gabadhana dee si moogtay sharaf ku jirto oo wanaagsan baan kuu siiyey idinkoo qabiilo ah oo qura baad naga soo doonteen haddana gurigay joogtaa way timi oo ii warantay waxaan rabaa hadalkii urursan gabadhaas inaan indhex galo waxaan ku dhex galayaan wax kale ma ahay inaan waraaqda moogtay gabadha aad ka bixiso gabadha waraaqdeeda inaad ka bixiso gabadhan gabadh kuu cuntamayso oo sii joogsay guriga may ahayn markaan waraystay baan ku go-aamiyey arrinta yeelkadeedii waa rogina mar haddaad timid waxay noqotana dib baynu ku ogaanaynaa waxaan rabaa inaad joogto maadaama taraag dheeraad soo gashay inaad guriga joogto oo haddii bayd maayo aad iska barida caawa berri way noola baryana haddii rabbi suuro geliyo aynu aragno haddana kusoo dhowo gurigaaga mar kale gurigaaga aabe de waxaa la carabi labadan baa isugu dhowo isqaninaa haddaad sir xagateen oo wax ku yarmaan dhaafteen siday ka firsan weydo ee samayna arrintu noqonaysaa waxaan u malaynaa laakiin adeeranu reerkayga waa rabaa yaa reerkayga waa rabaa taan arkay mid ku rabtay lama ahayn gabadhaan arkay gabadh ku rabto kuu cuntamaysa bal adigu odayeeyo dhex galo bal aan aragno markaas xaajadu ay tahay sababtoo anu ma rabo maanta ilmahayga in ay hooyadood la garoobayso ma rabo caruurta la garooba islaantu macnaha lagu furo ma rabo waxaan u dhimanayo u ordayo waa iyaga may haddii lagu furo dhib male wax kasta xumaato kastaba anigu inaan ku haystaan rabaa xumaan baad ku sheegaysaa xumaan bay leedahay maya xumaato kasta hadday sheegato dhib kasta ayaga ay xun tahay inay ilmahayga iga dayacmaan ma rabo waayahay horta iska soo dhawow guriga soo dhawow maya waxaan seexanayaa hodheel baan seexanaya may hodheel seexan guriga kusoo dhawow gurigaagii kusoo maya adeer anigu hodheel baan seexanaya caawa ma hotel baad ka go'an inaad seexato ha adeer ya albergadaas soo seexanaya adeer soo hoos ma lahayn ha hareero oo dhan bay ku taalla meelaha iska seexo oo waa reer meel camalkii waxaan isma hooye hadaad waad fiican tahay anu iska hooyey baan lahaay laakiin yeelkeeda haddaad adigu go-aansatay war iska seexo oo inantana caawa talada soo rogrogo aniga waxay ila egtahay gabadhan xila kuusii ahaanayn waxaad samaysaa gabadha xila kuusii ahaanayn bay ila egtahay si moogta u helaysee warka igu siisee bal haddii ay furi noqoto hadday furi noqoto arrintan miyaa dib iyo xagga u noqonaysaa su-aalka iskaga fududan maysa hadday furi noqoto furiinka in meesha laga saaraa layla qaata furiinba inuusan fururyaha iyaga soo marin baa layla qaata hadduu ka mari maayo wuu soo marayaa waaya saasa isku ogna waaya waaya adeer carruurta see ahaa kuma weydiine carruurta way roonaayeen waaya inaad soo kaxaysid baa ahayd waaya buuq ayaan u diidaya buuq ayaan u diiday waxaan islaa adinka war jira baa kaaru imaan wixii jira way iska maqayaan waaya adeerow furiinka iyo bal ayadana inta laga warwareegi karo laga warwareego waa wax ibliisku ku farxo weeye maxaa ya waa wax ibliisku ku farxo muxuu ku farxaa furiinka qaylada ku dheebu ku farxay waro aabo indhacadeen abo seeta abo waan fiicanay seeta ilahay gelidi aabe alxamdulilah warqadii ninkii ma iga soo qaaday aabe ninkii ma is aragtay aab ninkii waa saran wuu yimid waa is waraysanay aabe heedhe anigu qaqowgaa iyo waxaa horta kuguma ogeyn anigu waxaan islahaa aabbahaa waa nin meeshaad u dirto ka soo baxaya oo ninkaas aanay gabalka kaaga dhacayn warqada maxay tahay aaba mayacda iyo ninkii wuxuu igu yiri wuxuu yiri maxay tahay wuxuu yiri ma ku dirtay waa iswaraysanay ninkii hadaa iswaraysatay ma warqada halkan loo dhigto tiraad maxaa ka bariyaysaa aaba waa iswaraysanay ninkii wuuna jooga caawa magaaladan buu jooga caawa gurigeenuna jooga caawa oo qolka yar buu seexday
aabaanu meesha joogaa ima qusayso kaliya ta waxay qusaysaa aniga warqadeeda ninkan waan ka calool go'ay ninkan ma doonayo sukuma oo ha waan ka calool go'ay ninkan ha warqadeeda baan doonayo inta ka badan waa shan ka yaabeen stress qaado ana taa diyaar u dhiigka ma rabeen qaado aaba ninkan ku fiis bay qaadsiya aabay macaan maskaxdu ninkan kiciyay ninkan jacaylkiisa intuu madaxa iga galay baan gabigayga waxaan ku dhaway hadda inaan waa ma la joogto hada jacayl aan la qaybsanayn maxaan ku falaya ma afarta gidaar baa jacayl la wadaagay anigu iyo nolol ma qaybsataan waxa iga daay ninka warqada ma iga sita ha maya anu waxa ma doonayo iga faqad ninka warqada ma rabo xaguu hurdaa ii sheeg meesha hurdo ii sheeg aan ku tahay fariiso weeyo ana ka qaaday warqada iga qaaday fariiso shaydaanka sanad fariiso hada maxaa shaydaana xaalad way dhaaftay warqadii baan doonaya anigu waraaq sabir ha waraaq liyama waa in la furaan rabo anigu ana ka qaadaya haye diyaar hadda iska seexo qolka yar bisoo hurdaa isoo jeeda waxba moogtay has dhibin cidna u sheegin aroortii baan xajiisana waraaqdan laga qaaday aroortii xaajito lama sameeyay hadaan ninka warqada maxaad guriyaaga u seexinaysaa guriyaaga aad u jiifinaysaa ninka inantaad ka soo dacwatay gurigiisa ka yimid aabe maxaad u jiifinaysaa soo khalad ma waxaad u jiifinaysaa shaydaan ma saama aaba adiga laftirkaaga ba xaq jira aaboy oo ninka la jira oo baal siinaya aniga iga aad dhashayna waad iga horeysaa nin islaameedna waxaad siinaysaa garab baad siinaysaa ayuu waraaq ma rabtay aad maxaad u seexinaysaa ninka guriga maadaa dhalay ana dhashay misaga dhashay way ana waraaq ninka warqadeeda iga qaad waxaan ku hadlaan garanayaa naagteedii wixii la ogeed ku hadlaysay alla ilaahu rabbi raxmaan oo jacaylku cajaayibsan hadduu jacaylku hayo waa dhibaato daacado xabiibi ma kula hadli karaa baybi ma kula hadli karaa wax yar alla baybi hay furi waan ku baryayaa waxaan ku kala tagnaa meesha ma yaalaan waa og tahay 3 ciyaalo ilaahay wuxuuna siiyey biyada hab la moodo macilaa nooga tegaysa aniga carruurteena baybi inaan ku jeclay waa ogtaan la'aantaan noolaan karin kala tegaynin daqiiqadaha ka harsan aabahay waxaan ku uri kama dambays weyn ninka iga furbaan dhahay waxaasaa u dhahayaana waa jacayl aan ku qabo qaali la'aanta lama noolaan karayo labadii habeen aan naga soo maqneed wallaahi bilaahi talaahi saan noqonay aniga awlaadii ilaahun baa ka sheekayn kara waxa ku danaysa oo ku daba socota naa ku jecel oo ku rabtaa ku danaysa oo kaa qayrisa oo kaa maseertay soo ma ogid waa ku baryahay furin la'aanta inaan noolaan karin waa og tahay ka noqon go'aankaas waxaa tiraahdaa aabe maxaa la dhihi jiray furiinka ma furaayo ku dhica yaa xabiibi ila hadal bay waa ku baryayaa ma raba aniga inaa ifurtid inaan reerkayga gurigayga haystaan raba adiguna aad iga daysid masayrka iyo waalida maskaxdayda aad kicinaysa anu waa ku jeclay la'aantaa ma noolaan karo qaali waa og tahay reerkeena ana kala furayo kulli fidna cinda gel waa aabahay waa oday kulul weeyaan haddaan wax yar u sheego waa oday saa ii horboodayo iga daran wuxuu igu yidhi ma rabtaa inaan kaa furo deg deg baan kaaga furaya berri baa ina la kala furaya haddii ilaahay ka dhig daqiiqada yar baa furiinkeena ka haray bayb waa ku baryayaa reerkeenu iyo ina kala kaxayn reer fidnaa baan kasoo jeedaayo saa dadka u kala diraya anu waan ku jeclay la'aantaana ma noolaan karayo waa ku baryayaa hay furin waa ku baryayaa ka noqon furiinkaas waxaa tadaa naagteedii reerkayga waa jeclahay dhe aabahayna waxaad ku tiraahdaa gabadhaada ma furayo kudha waa jeclahay kudha gabadhaada bayb waa ku baryayaa hay furin please bayb waa ku baryayaa hay furin waa ku baryayaa xabiiba hay furin garkaaga haystaa iyo lugahaaga waa ogta la'aantaa ma noolaan karayo aniga carruurta toona indha cade kaale aab hag soo fadhiiso aab maxaa meesha ku seexiyay adiga hag soo fadhiiso sodigi gulaa daacad baa jiifa hag soo fadhiiso soo duro aabe kaala ma qulaan kula hadlaya kaala waan ceebooba iga tag ma qulaan kula hadlaya kaala iga tegine aaba maxaa ku seexiyay adiga meesha markaygan ku ogaayay aaba weligaa laguma furayo reerkaaga haysanaysaa carruur kaloo badan waa dhalaysa isagaa telefoon noo soo diro nagu yidhi maxaa halkaan ugu kaala kasan jiifnaa laguma furayo ku bishaarayso waxbaha welweli aabe gabadh wanaagsan baa tahay reerkeeda haysanaysa annagaa shaydaan naqaalay marka hore degdegnay aan ka fiirsan arrinta